بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن إذا لهانتين به meel kasta aad joogtaan sidaad arkaysaanba waxaan duubayaa video halkan waa wadanka Jarmalka waxaan ku jirnaa bisha May maanta bisha May waa 4 oo maalin Isniin ah halkan aad duubayo waxa weeye waa meelaha beerooyinka ama xaafadaha ka baxsan townka dhulkan saad arkaysid waa dhul laga shaqeeyay waa dhul maaragtay dadkii lahaa ay u fikireen waa dhul maaragtay dhan walbo aad looga shaqeeyay halkan waa wadadii gawaarida ay marayeen meeshaan hadda aan ku qabanayo arkaysaan waxaa loogu talagalay labadan calaamadood oo arkaysaan in gaariga xagga ka soo socda uu istaago ama kan uu istaago labadaas mid istaagaan weeye laakiin ujeedada aan ka leeyahay waxa weeye inta badan xilligan waxa la galayaa xilliga saamarkana waa xilliga ay ugu qurux badan tahay wadamadan qarbiga ah ama western ka ah marka ujeedadan kale waxa weeye walaalayaal waxaan arkayay Muqdisho maalin dhaweyd mudaharaad ka dhacay dadkii oo duminayo meel walbo oo wadankoodii ah marka arintaas waxay noqotay arrin aan la yaabay oo aan ka seexan waayay oo runtii igu noqotay wax maaragtay la yaab leh markii loo eego dhan walbo marka ujeedada aan kale waxa weeye hadda filimka u duubayo in wadan walba qof walba wadankiisa uu ka shaqaysto oo si fiican maaragtay qof walba wadankiisa maaragtay uu ka shaqaysto oo sidaan uu hagaagsado meeshan hadda arkaysaan waa beeraha weeye inta badan halkan looda lagu soo daayaa wax yar kadib hadda waliba sanadkan waxa isleeyahay xilligan oo kale waagi hore waxay ahaan jirtay saamar lama gaari jirin laakiin uu soo degdeg hadda oo sanadka hadda aan soo dhaafnay waxay iska ahayd carrada abaar bay iska ahayd marka walaalayaal ujeedada marka videogan kale waxa weeye waa laba xaalo koow inaad ku fikirto wadankaaga wax ku dhaama ma leh inaad dhisato oo arkaysa sida looga shaqeeyay geedahaas iyo dhan walba looga shaqeeyay waxaad arkaysaa dhulkana sida looga shaqeeyay tusaalahan hadda halkan waxaa arkaysaan waa caws meeshan waxa loogu talagalay waa meel iska beera ah looda lagu soo deyn mar dhow way iska daaqaysaa waa iska baashaalaysaa marka walaalayaal inta dhulkiina dumin lahaydeen dhulka dhista dhulkan hadda runtii dhulkeena waa dhul maalinka xilli walba 12 bilood la tabcan karo wax laga keeni karo beeruhu ay ku baxayaan dhul casab ah oo aysan ku dhicin maaragtay aan la isticmaalin intiisa badan weeye marka walaalayaal wadankeena aan ku dadaalno sida u dhisano oo sida u hagaagsano waxaad arkaysaa geedahan waa la abuuray waa geedo dhulka lagu bacramiyay saas laga dhigaa wadankan hoosna waa saas oo saasi u qurux badan tahay oo booqaas u leedahay korna waa saas marka walaalayaal waxaan idin leeyahay isku tiirsanaada wadankiina dhista waxaad isku daydaan wadankiina inaad dhisataan oo hagaagsataan halka aad ka dumin lahaydeen wadankan dadkan qof walba wuxuu ku dadaalaa wadanka nadaafadiisa bal iska badaay waa dambiba haddii qofka caagad yar oo biyo ka cabay ama bac ama joornaal yar uu qaado maantana gacantaad ku wadaysaa hadii kala ganaax weeye ilaa aad ku ridayso meesha loogu talagalay ee qashinka ahayd ee loogu talagalay marka ujeedada marka video intaas buu ahaa waxaan ka waday inaad aragtaan wadamada dadka ay iska leeyihiin sida uga shaqaysteen sida u qurxiyeen sida maaragtay ugu dadaaleen iyo sida annaga aynu u dayacanahay oo wadankeena u jijibinayno waxaa nasiib darro ah oo aan la yaabay in wadankiisa asaga uu lahaa jijibinayo oo duminayo asagoo haba yaraatee aad moodayso wadanka wadan uusan asaga lahayn oo xajaalaba aysan ka haynba marka aqliga ha shaqeeyo
karaamada ha shaqayso soomaalinimada ha shaqayso waddankaada iska burburin quruxso hagaagso qof walbana gurigiisa ha nadiifiyo hortiisa ha nadiifiyo waddada ha nadiifiyo waddada waa public dadkay ka dhaxaysaa shacabka dhan baa iska leh quruxda aday ku anfacaysaa bay-aday ku anfacaysaa caafimaad ahaan bay ku anfacaysaa waayo waxaad ogsoon tahay qashinka inta kuu jiro ayuu cudur